hoteelka Daalo ee magaalada Burco ayaa ahaa hoteelkii martigeliyay carwo ganacsiyeedka sagaalaad ee Somaliland oo ay ka soo qayb galeen ku dhawaad 100 shirkadood. maamulka guud ee hoteelka Daalo Maxamed Cabdi Axmed oo shir jaraa'id ku qabtay barxadda hoteelka Daalo ee magaalada Burco ayaa ka warbixiyay hanaankii ay u qabsoontay munaasabadii carwo ganacsiyeedka sagaalaad ee Somaliland oo martigeliyay hoteelka Daalo ee magaalada Burco. waxaanu carabka ku adkeeyay in mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha hoteelka Daalo ay qayb laxaad leh ka qaateen habsami u socodka carwada ganacsiga sagaalaad ee Somaliland. maanta runtii farxad ayay noo tahay dhamaanteen waxa gabagaba ah oo saacado ka bacdi insha Allah taala soo gabagaboobaysa carwo ganacsiyeedkii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Somaliland. waxaan aad ugu mahadnaqayaa rugta ganacsiga oo gacan weyn ka geysatay in carwadani ay timaado Burco. guud ahaan rugta ganacsiga gaar ahaan gudida rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer ka maamul ahaan markaanu nahay Daalo Hotel runtii waxay ahayd hawl weyn bay ahayd oo diyaar garowgeeda lahayd oo dadaalkeeda lahayd. waxa isugu imanayay ama soo booqanayay ama imanayay hoteelka ku dhawaad ugu sarreyn ilaa 10,000 oo qof 7,000 oo qof marka la eegayay kaararkii lagu soo galayay laga cabiray xagga. runtii qof adeeg daro tirsaday ma jirin, hadday tahay cuntada, hadday tahay cabitaanka, hadday tahay adeegyada kale. aad iyo aad baan ugu dadaalay, waxaanan u mahadnaqaynaa cid kasta oo gacan uga siisay security-ga haddii ay tahay. waxa qayb weyn ka qaatay ciidamada booliiska laamahooda kala duwan. waxaa taagnaa ciidanka dabdamiska oo diyaar ahaa. waxaa joogay qaybtii caafimaadka ee gargaarka degdega ah. hadday tahay waxaa sidoo kale joogay laydhkii, biyihii, qolo waliba heegan bay ahayd. marka intaa laga yimaado maanta waxaan halkan ku cadaynaynaa haddaanu nahay Daalo Hotel inaanu capacity iyo awood u leedahay inaanu qabanno dhacdadan oo kale iyo kuwa ka waaweynba. annagoo matalayna gobolka Togdheer, annagoo matalayna magaalada Burco. marka waxaan leenahay fariintaanu diraynaa waxa weeye cid kasta oo danaynaysa Burco maanta waxa caddaatay Burco awoodeeda ganacsi. waxay ahayd waxa caddaatay population-ka ku nool. cid kasta waanu ku soo dhaweynaynaa gobolka Togdheer. waxaanu leenahay ku soo dhawaada haddaanu nahay Daalo, haddaanu nahay reer Burco. waxaan leenahay dadka waa magaaladii ganacsiga, waa magaaladii xudunta u ahayd Somaliland. intaa ka bacdi waxaan jeclahay inaan halkan uga mahadnaqo shirkadihii aad iyo aad ugu dadaalay ka soo qaybgalka carwadan. waxa ugu horeeyay shirkadii ugu horeysay ee hoteelka timaada wuxuu ahaa ganacsade Axmed Cismaan Geelle, Las Group Company, SBI Group. waxa kamid ah shirkadda Dahabshiil Group oo adeegyo fiican halka runtii bixinaysay. Telesom Group, shirkadda Ilays, Premier Bank, Amal Bank, So Company, shirkadda Ilatango oo iib aad u badan meesha ka sameeysay. shirkadaha dawooyinka ee Mubaarak iyo Al-Aamin, Alfatek, shirkadaha furniture-ka City Furniture iyo Daryeel, shirkadaha biyaha Burco ee wax soo saarka Burco, Saxan Saxo iyo Maaxda, Allamagan Company, shirkadaha basaska. dhammaantood lama xaadirin karo, boqolaal company bay ahaayeen, lagama wada sheegi karo halkan, laakiin dhammaan waan u mahadnaqaynaa. geestooda shirkadihii waaweynaa ee ka soo qayb galay carwo ganacsiyeedka sagaalaad ee Somaliland ayaa ka mahad sheegtay adeegyada hoteelka Daalo tan iyo intii ay socotay munaasabadda carwo ganacsiyeedka sagaalaad ee Somaliland. anigoo Maxamed Cabdi Qowdhan, madaxa iibka iyo suuqaynta shirkadda Las Group. waxaanu hambaliyaynaynaa hoteelka weyn ee Daalo oo cuntadii, cabitaankii, hurdadii iyo adeegiiba iskugu daray dhammaan shirkadaha ka kala yimid Somaliland oo dhan. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa maamulka iyo howlwadeennada Daalo Hotel sida fiican ee qiimaha badan ee agaasinka badan ee ay u xamileen capacity-ga ballaaran ee inta leeg
ee kumanaanka qof ah inuu dheelkooda ay ku qaabilaan. waxaan halkan mahad ballaaran uga soo jeedinaynaa hoteelka caanka ah ee Daalo Hotel and Restaurant. waxa uu soo bandhigay adeeg aan hotel kale oo magaalada ku yaala awoodi kareen. waxaan u mahadnaqayaa hoteelkan oo karti u yeeshay inuu intaas oo qof uu martigeliyo oo uu servicekoodii iyo cuntadoodii iyo sharaabkoodii waa uu ka adkaaday intaa. Shaib Hassan Dere, Sahan TV, Burco.